السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتا ku xiran janaalka marka la soo dhawaada aad iyo aad u mahadsantihiin. Maanta waa Sabti waana 23 bisha 8 ee August sanadka 2025. Muuqaalkan waxaan rabaa inaan idinku la wadaago sababta wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ay u tiri dad haysta fiisayaal 55 milyan oo qof oo wadanka fiisayaal ku yimid ayaan dib u eegaynaa fiisayaashooda kuwii lagu helo dambi ama sidoo kale in fiisayaashooda waqtigii loogu talagalay wadanka inay uga baxaan maahane waqti dheer ku joogay in iyagana wadanka laga masaafurin karo xitaa haddii green card ay haystaan. Arrintaasi ayaan idinla wadaagayaa ilaa iyo 6,000 oo arday oo muddadii 7 bilood ee Trump uu xilka hayay sidoo kale fiisayaashii waxbarasho lagala laabtay. garsoore federaal ah oo gobolka Florida ku amray 60 maalmood gudahood inay ku xiraan xeradii alligator Alcatraz oo dadka soo galootiga sharci darada la geynayay. Sababtu maxay tahay waan idinla wadaagayaa. ninkii Kilmer Abrego Garcia ahaa oo aan ognahay in xaalad siyaasadeed oo wadanka ka dhaliyay markii wadanka El Salvador bishii 3aad loo masaafuriyay oo shalay xabsiga laga soo daayay. haddaba ICE maxay ugu hanjabayaan wadan Afrikaan ah inay u masaafurin doonaan. sidoo kale waan idinla wadaagayaa. waxaa sidoo kale aan idinla wadaagayaa haweeneydii madaxda ka ahayd ururka Feeding Our Future ee Amy Bak iyo Salim Saciid oo bishii Maaj dambi lagu helay isla markaana codsaday maxkamad labaad oo garsoore arrintaasi uu ka diiday. haweeneydii saaxiibka la ahayd ninkii Jeffrey Epstein ahayd markii uu wareystay wasiir ku-xigeenka cadaaladda bishii la soo dhaafay waxaa la soo bandhigay shalay qoraaladii iyo codadkii uu ka soo duubay. Trump waxay leedahay isagoo wax qalada sameynaya ma arkin. Clintonna maxay ka sheegtayna sidoo kale waan idinla wadaagayaa. balse marka hore soo dhawaad bilaabay maamulka Trump markii uu xilka la wareegay waxaan ogeyn inuu bilaabay masaafurin aad u ballaaran oo Trump ilaa iyo xilligii ololaha doorashada uu ku hanjabayay in masaafurinta ugu ballaaran uu sameyn doono. hadda waxaa soo baxday in maamulka Trump uu doonayo in dib u eegis uu ku sameeyo dad haysta fiisayaal gaaraya ilaa iyo 55 milyan oo qof. arrintaasi oo laga yaabo dad xitaa green card leh in la masaafuriyo. waxaana arrintan ku jira xitaa dad ajnabi ah oo fiisayaal sax ah haysta kuwaasi oo laga yaabo siyaasadan cusub ee wasaaradda arrimaha dibadda ay soo rogtay oo dib u eegis loogu sameynayo dadka fiisayaashaasi 55 milyan haysta in ay saameyn ku yeelato. wakaaladda wararka ee AP ama Associated Press ayaa waxay Khamiistii soo tabisay in wasaaradda arrimaha dibadda ay sheegtay inay dib u eegis ku sameynayso liiska ilaa iyo 55 milyan oo qof oo dad ajnabi ah oo wadankan visa ku yimid isla markaana inay sharciga jabiyeen amaba sidoo kalena ay ka hor intii aysan wadankan ku noolaanin ay sidoo kale ay xadgudub dhinaca sharciga ah ay sameeyeen. wadankan waxaan ognahay markaad imaanayso haddii aad been ka sheegto viisahaada aad ku imaanayso waa lagala laaban karaa viisahaada. marka waxay muujinaysaa in wasaaradda arrimaha dibaddu ay doonayso in dadka viisayaashaasi haysta mar kastaba ay yihiin kuwa baaritaan lagu sameyn karo. waxaana wasaaradda arrimaha dibaddu ay xaqiijisay inay hadda dib u eegayso shakhsiyaadka laga yaabo in fiisayaashoodii markii uu dhacay kadib wadanka ay sii joogeen. dad fara badanaa jiro wadanka fiisa dalxiis ama booqasho intay ku imaadeen markaasi kadib sii joogay amaba guursaday kadibna green card helay. dadkaasi oo kale qaab sharci darro ah ayay Mareykanka ku joogeen maadaama fiisahoodii sababtii ay u yimaadeen markii ay u dhamaatay kadib aysan wadanka ka bixin. dadkaasi xataa haddii ay green card haystaan wadanka waa laga masaafurin karaa. dad badan oo Soomaali ah ayaana sidoo kale ku jira. marka haddii aad overstay samaysay oo fiisahaadii markii uu ka dhacay kadib aad sii joogtay ama sidoo kale dambi aad gashay ama qatar aad ku tahay ammaanka shacabka Mareykanka macnaheedu waxay tahay wadanka waa laga masaafurin karaa. waxaana sidoo kalena arrintan ay muujinaysaa in dawladdu ay doonayso in dadka ajnabiga ah ee sidoo kale lagu helay inay ku lug leeyihiin falal argagixiso amaba kooxo argagixiso ay taageeraan in iyagana fiisahooda lagala laaban karo kadibna la masaafurin karo. waxaa la leeyahay dadkaasi waxaa ku jira 12.8 milyan oo ah dad green card haysto oo visa intay wadankan ku imaadeen qaabkii ay ku imaadeen markii ay ka dhacday kadib wadanka aan ka bixin ilaa iyo 3.6 milyanna waxay yihiin kuwa sidoo kale viisayaal ku meel gaar ah iyaguna haystay oo wadanka inay ka baxaan ahayd laakiin aan ka bixin. wasiirka arrimaha dibadda Marco Rubio ayaa isaguna waxa uu sheegay sidoo kale inay si degdeg ah ku joojiyeen dadkii viisayaasha shaqada ku imaan jiray gaar ahaan kuwa gawaarida taraagada wada ay ninkii Hindiga 12 bishan markuu wadada highwayga ee Florida U-turn intuu ku sameeyay 3 qof uu dilay kadib baaritaan
baaritaan xoogan ayaa la bilaabay marka waxa uu yiri ma doonayno dadkan visa shaqo inay ku imaadaan oo traaga wadankeena isla markaana nolosha dadkeena ay khatar keliyaan marka dadkii viisayaasha oo shaqada ee traaga ku imaan jiray gabi ahaanba dowladdu waa ay joojiso hakad ayay gelisay ilaa iyo amar dambe waxaa sidoo kale jirta inay soo baxday in 6,000 oo arday viisayaashii waxbarashada lagala laabtay ilaa iyo Trump markii uu xilka la wareegay 7 bilood ee hadda uu xilka hayay waxaana 4,000 oo kamid ah ardadaasi la sheegay in ay ku lug lahaayeen dambiyo halka 200 ilaa iyo 300na sidoo kalena iyaguna loo kansalay viisahooda arrimo argagixiso la xiriira inay argagixiso iyo waxaasi ay xiriir la lahaayeen arrintaasina sidoo kale waa ay jirtaa dhinaca kale garsoore federaal ah oo lagu magacaabo Kathleen Williams oo Obama uu magacaabay intuu madaxweynaha ayaa gobolka Florida waxa ay siisay muddo 60 maalmood ah inay ku xiraan xerada la yiraahdo Alligator Alcatraz isla markaana aysan ballaarin karin ayna joojiyaan nalalka ay gelinayaan ama ballaarinta ay ku hayaan xeradaasi waxaan ognahay bishii hore in gobolka Florida uu dhisay isla markaana Trump xitaa uu tagay uu kormeeray isla markaana uu soo arkay indhihiisa ku soo arkay waxaana sidoo kale garsoorahan ay ku amartay gobolka Florida in ay gabi ahaanba meesha ay ka saaraan matooradii ay keeneen gaaskii ay keeneen iyo meelihii siwijka oo wasaqda saxrada iyo waxyaabahaasi gudbinaysay gabi ahaanba inay joojiyaan oo mashruucaasi lagu taageerayay 60 maalmood gudahood waxaana garsoorahan la yiraahdo Kathleen Williams ay soo saartay amar ka kooban 82 bog waxa ayna dawladda u sheegtay in ay sidoo kale meesha ka saarto in siligii ay ku wareejisay oo darbiga ahaa si loogu ogolaado qabiilka la yiraahdo Makasuka tribe oo asal ahaan dadkii wadankan loogu yimid ah oo India ka soo jeeda in ay booqan karaan goobtaasi sidii markii hore ay u tagi jireen intii aan laga dhisin xeradan in loo ogolaado marka dad deegaanka u ololeeya oo qabiilkaasi ka tirsan dadka Native Americanka la yiraahdo ayaa arrintan dacwad ka gudbiyay waxay yiraahdeen meeshan xayawaan fara badan ayaa ku noolaa xayawaankii noloshooda ayaa khatar galaysa sidaas darteed ayaa dacwadan ay gudbiyeen garsoorahana waa ay ka ogolaatay waxaana la yiri khatarta ku imaan karta xayawaanka halkaasi ku nool Everglades ayaa waa meel kayma ah iyo xaasyo iyo xayawaano kala duwan oo musaska nooca pythonka ay ku nool yihiin isla markaana waa federal protected oo dawladda federaalka ayaaba horay u ilaalisay meeshaasi marka waxa la yiri waxay khatar u geynaysaa xayawaanada sidaas darteed waa in xeradaasi muddo 60 maalmood gudahooda meesha looga saaraa mana jirto in la geyn karo dad cusub oo soo galooti oo halkaasi lagu xirayo garsooruhu waxay tiri lama geyn karo xeradaasi Alligator Alcatraz waxa loo qorsheynaya 5,000 oo qof in markiiba la geyn karo waxaana gudoomiyaha gobolka Florida Ron DeSantis uu yiri arrintaasi raaxfaan ayaan ka qaadanaynaa sidoo kalena waxa uu sheegay in arrintaasi gabi ahaanba aysan sharci ahayn marka waxa la yiri in gabi ahaanba 60 maalmood gudahood waa inaad ku xirtaan xeradaasi dhinaca kale ninkii Kilmer Abrego Garcia oo ognahay 15kii bishii March ee 3 in la xiray kadibna loo masaafuriyay wadanka El Salvador oo asal ahaan uu ka soo jeeday in arrintaasi xaalad siyaasadeed wadanka ay ka dhalisay xitaa senator laga soo doorto Maryland maadaama ninkaasi Maryland uu deganaa isaga qoyskiisa ayaa ku booqday xabsiga sida sawirkan ka aragtaan senator Ron Van Halen waxaana markii dambe laga wareejiyay xabsiga Seacode oo dowladda El Salvador dadka dambiilayaasha ee gaangiska ka tirsan ay ku xirto xabsi kale ayaa loo wareejiyay markii dambena bishii 6 ee June ayaa Mareykanka dib loogu soo celiyay walow dowladdu ay ku eedeysan ninkan inuu ka qayb qaatay in dad uu kala gudbiyo oo muqallasnimo uu ka sameeyo gudaha Mareykanka isla markaana ay hub daroogo iyo wadankan uu soo galay iyo dad sharci darro ah waxaana kamid ah sidoo kale dadka uu kala gudbinayay kooxaha gaangiska MS-13 dad ka tirsan iyo waliba caruur waxaana maxkamadiisa la filayaa bisha January ee sanadka 2026 in dambiyadaasi lagu soo eeday laakiin shalay ayaa laga soo dayay xabsi ku yaala magaalada Nashville ee gobolka Tennessee waxa uu yiri dad fara badan ayaa garabkiga taagnaa waan ku faraxsanahay inaan xorriyadeydii helo laakiin inaan si buuxda xorriyadeydii aan u helo wali waqti fara badan ayaa ka dhiman hadda shalay markii la soo daayay isla xalayba waxay ICE ku wargelisay ninkan in laga yaabo in wadanka Uganda loo masaafuriyo 72 saacadood gudahood waa 3 maalmood gudahood oo ka bilaabanaysa Isniinta waxa la leeyahay waxa laga yaabaa in lagu masaafuriyo wadankaasi waa kan markii shalay qoyskiisa uu la kulmay xaaskiisa iyo caruurtiisa uu habsiinay wuxuu yiri waan ku faraxsanahay inaan 6 bilood ka badan ayaa ninkan dawladdu ay haysay oo xabsi El Salvador ama mid Mareykanka gudihiisa uu ku jiray marka waan ku faraxsanahay inaan xorriyadeydii dib u helo ayuu yiri laakiin sida muuqata shalay markii xabsiga laga soo deynayay waa kan sawirkan inuu ku soo qurxanaaday ayaad u malaysaa muddadii 6 bilood ahayd uu xabsiga ku jiray marka waan arki doonaa ninkaasi xaaladiisuna halka ay ku dhamaato dawladdu waxay ku eedeysay in kooxaha gaangi
gangiska M13 uu ka tirsan yahay laakiin isagu waxa uu yiri kama tirsan dhinaca kale haweeneyda madaxda ka ahayd ururka Freedom Our Future Amy Back iyo Salim Saciid waxaan ognahay in maxkamad 3 bishii February ee labaad ee sanadkan bilaabatay soona gabagabowday 19 bishii 3 ee March in lagu helay Amy Back oo 7 dambi lagu helay iyo Salim Saciid oo 22 dambi lagu helay hadaba qareenadooda ayaa codsiya dalbaday leeyihiin maxkamadaasi waa in dib loogu celiyaa shalay ayaa garsoore ay ka diiday waxay tiri maxkamadaasi dib loogu ma celinayo hadana xukun sugayaal waay maadaama dambiyadii lagu soo eedeeyay ay labadan qof ay kamid ahaayeen dadka ugu horeeyay musuqmaasuqaasi hormuudka u ahaa sida darteed waa laga diiday in maxkamadoodii mar kale dib loogu celiyo ugu dambeyntii waxaan ognahay sheekadii Jeffrey Epstein ninkii gabdhaha da'da yar oo aan qaan gaarin madaxda caalamka ka gadi jiray isla markaana markii dambe la qabtay sanadkii 2019 ka xabsi ku yaala New York isku dilay laakiin shaki uu ku jiray inuu isdilay iyo in la dilay ayaa haweeneydii saaxiibka la ahayd oo gabdhahaasi u soo shukaamin jirtay una geyn jirtay leeyahay Glenn Maxwell oo iyadana 20 sano oo xabsi lagu xukumay oo xabsi Florida ku jirtay ayaa waxa bishii hore xabsiga ugu tagay wasiir ku-xigeenka cadaaladda ninka la yiraahdo Todd Blanche oo Trump qareenkiisa ahaan jiray waraysi 9 saacadood qaatay ayaa muddo 2 maalmood ah uu la yeeshay hadaba shalay ayaa wasaaradda cadaaladda waxay soo bandhigtay codadkii iyo qoraalkii haweeneydaasi laga soo duubay Trump watii la dhahay ninkaasi saaxiib ayuu la ahaa jasiiradiisa dhowr jeer ayuu booqday sidaas darteed waxaa la weydiiyay Trump inay aragtay isagoo wax qaldan sameeyo maya ay tiri Trump oo wax qaldan sameeynaya intii uu saaxiib la ahaa Jeffrey Epstein ma aanan arkin sidoo kale madaxweynihii hore ee Mareykanka ninka la yiraahdo Bill Clinton ayaa isagana waxa ay sheegtay inuusan saaxiib la ahayn Epstein uu aniga ayuu saaxiib ila ahaa ayay tiri Trump hore waxa uu yiri Clinton 20 jeer ka badan ayaa jasiiradda ninkaasi Jeffrey Epstein uu booqday Todd Blanche sidoo kale waxa uu weydiiyay ma rumaysan tahay inuu isdilay Jeffrey Epstein ama la dilay waxay tiri ma rumaysni in la dilay laakiin hadii la dilay arrintaasi arrin gudaha ayay ahayd waxay ula jeedo ma aysan sii faahfaahin sidoo kale waxyaabaha la weydiiyay waxa kamid ahaa client list ma jiro dad oo Jeffrey Epstein oo liiskiisa oo macaamiishiisa ahaa oo gabdhaha da'da yar oo qaan kaarin uu ka iibin jiray ama uu u geyn jiray ma jiro waxay tiri intaan ogahay wax listiya ma jiraan marka Trump oo dadka taageerayaashiisa ay ku dhaganaayeen dhahayeen faayalka Jeffrey Epstein hala soo bandhigo waxaad u malaysaa cadaadiskii inuu hadda ka dagayo maadaama la leeyahay ay haweeneydii madaxda ka ahayd ay leedahay boo saaxiib la ahayd Jeffrey Epstein Trump oo qalad sameynaya ma arkin wax client list la yiraahdo ma jiraan oo list macaamiil ah ma jiraan arrintaasi inay ka dagi doonto marka wareysigaasi 2 maalmood bishii hore uu la yeeshay wasiir ku-xigeenka cadaaladda xabsiga ay ku jirtay Florida waa laga soo wareejiyay xabsi dumar kaliya oo gobolka Texas ku yaala ayaa lagu soo wareejiyay arrintaasi oo dadkii gabdhahooda ay ka haweeneydan shukaamin jirtay oo Jeffrey Epstein intay u geyso oo dadka madaxda ka gadi jiray ee aad uga caroodeen oo yiraahdeen isxaan ayaa loo sameynaya hadda waxa laga yaabaa inuu Trump cafiyo mar la weydiiyay bishii hore waxa uu yiri waan cafin karaa laakiin arrintaasi wali ma aanan ka fikirin waxyaabaha ka soo kordhana waan arki doonaa aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta intaan mar kale kulmi doono waa saaxiibkina cilmi waro idin la sida iyo nabadgelyo